هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله. ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله. هل لك سر عند بسم الله والحمد لله والصلاة على رسول الله. كسو دواada walaalayaal marka xalqadeeni 13aad ee barnaamijkeeni tababarka nolosha guurka waxaanu ka soo hadlaynay aqdiga oo nooga sheekeynay xalqadan goosgooska ka horna waxaanu ka sheekeynay ankaxada islaamka oo xarimay iyo aqdiyada waxaana kamid ah nikaaxul mut'a sidaas oo kale islaamku wuxuu xarimay nikaaxu shiqaar waxa way inuu nin guursado haweeney asaga uu ku bedelanayo haweeney kaleeto waligeedii ayaa u guurinayo waligii gabar kaleeto uga bedelanaya wuxuu ku leeyahay ii guuri walaashaya waxaan ku guurinayaa walaasheeda meherka walaasha waa isla baxayaan meherkaaga iyo meherkeeda waa isla baxayaan waa isku bedelanaya macna wuxuu ku dhahayaa ii guuri gabadhaada tusaale ahaan ama gabadhan qaraabada ta waligeeda heedid anigana wax ku guura gabadheeda ama gabadhan meherka taas iyo meherka tan waa isla baxayaan adigana wax ma dhiibaysid anigana wax ma dhiibay islaamka uu xarimay nikaaxan uu ku yeeriyahay wadamada islaamka wadamada Carabeed laakiin waa la helaa waa wax jiro oo la helo meelaha qaar nabiga sallallahu alayhi wasallam uu xarimay nikaaxas sharciyan ma jiro nin in la mehriyo gabadha ilaa meher la'aan meherkaas ha yaraada ama ha badnaadee waxa jiro marka wadamada islaamka waxyaabo laga sheego oo ka dhaco oo ka imaado wadamada reer galbeedka iyo waxa lagu magacaabaa zawaajul madani guurka madaniga waa maxay guurkaas madaniga ah annaga walaalayaal muslimiin ahaan hadii aan istaagno annaga oo tukanayno takbiiratul ihraam xirano salaadi aanu akhrino ducadii rasuulka sallallahu alayhi wa sallam alayhi wajhtu wajhi lilladhi fadara as-samawati wal ardi hanifan musliman wama ana min al-mushrikin inna salati wa nusuki yani ibadaadkay oo idil salaadeyda nusukayga ibadaadkay oo idil wa mahyaaya wa maati lillah annaga waxaan u noolnahay ilaahi dartiis annaga waxaan waxyaabo kasta oo sameynayna ka qaadanaa dhanka iyo ilaahi muslimku waa qof qaali ah ilaa uu awoodi waayo in la gato ilaahi subhanahu wa ta'ala mooyo muslimku ma la gadan karo sharqiyin wala qarbiyin fiiriya ilaahi subhanahu wa ta'ala qofka muslimka ah wuxuu ku xiran yahay ilaahi subhanahu wa ta'ala waxaan anagu u guursanaa sharciga islaamka anagu fulinayno zawaajul madani waa sawaaj iyo guur ka imaada dhanka iyo wadamada reer galbeedka waxay dhahaan looma baahno lagamana rabo qofka hadaa rabtid adiga inaad guursatid inaad dawaabidka sharciga waxyaabaha islaamka iyo waajibaadka aad sameeysid lagama rabo arkaanta zawaajka waxaan hore u soo aragnay in arkaanta aqdiga ay soo shan siiqadii zawjaankii iyo shaahidaanka marqaatiga iyo waligi waxaanu marka guurka madaniga maba jiraba waajibna ma ahabo in wali la helo hadaa adiga gabadhan jeclaatid ayadana ku jeclaato aad rabtid inaad guursatid ee ku ajab gelisay iska hesheen wiilkan ka hesha gabadhan waa isla gacmaha iska qabsanaysan waa israacisan maxkamada tagaysan waa iskiin meherinayaa waa isla dagaysan munka mas'uulka maxkamada joogo kaliya wuxuu ku leedahay gabadhana raba asagana uu wadiinaya mar taraalima ku tahay ha khalaas waa iskiin mehri waa iskiin guuri aawo waligi guurka madaniga looma baahno wali aawo marqaatiyaashii guurka madaniga looma baahno marqaatiyaal aaway maxaa la meherki gabadhan iyo waxeedii may zawaajka madaniga meher iyo maba lehba gabadha xaq wiilkan muslimiya ma sawa mushrik zawaajul madani liskama rabo haduu yahay mid caabudo looyaasha ma dumti aad jeclaatay maadaama aad jeclaatay bas waalidku mehrinaa annaga muslimiin hadaan raali kuma nihin ilaa ilaahi subhanahu wa ta'ala qof ahayn inuu noo sharciyo raali kuma nihin inuu waxna baro qof aan ilaahi subhanahu wa ta'ala ahayn waxa faan noogu filan anaga muslimiin hadaan nahay inuu ilaahi yahay midka waxna baro ilaahi inuu yahay midka adbiyay oo aadaabtana baray zawaajka madaniga uu ku yariyahay walaalayaal wadamada islaamka alxamdulillah wadamo badan oo islaamka laakiin guurkaas waa wax jiro oo dhibaato nagu ah oo xumaan iyo
falxumo ee dadkana inay bartaan la rabo ee ogaadaan annagana guurkeena wuxuu u dhacayaa sida sharciga islaamka ah maadaama annaga aan nahay dad muslimiin ah zawaajka madaniga ah guurkaas madaniga ah islaamku ma ogolo hadda dhamaadka ka hor waa maxay sunanka caqdiga nikaaxa يعني هذا أنا عقد النكاح سميناه وما حي سنن كوحيابها وناكسن أي هبونتا إنا سميناه وحجر والسنن هدي أسمي سيدا أجر كيدا سيد سنة ذا كواد إنا دي علامي سيد إنا حفلة عرسي قبلنا إنا دتك أشاقنا إن ويلكو أما قبضوا أصحابتي اسكو إمادان كالي الحمد لله أنا قوى قورسدي هبلايا قورسدي قبضوا هذه هبل بان قورسدي اسكو إمادا إنا قبضوا إهل كذي قرابة ذي درس كذي أصحابتي ذي iskugu wacdo xaflad u sameeyo rasuulka salaatu rabbi wa salaamu alayhi wuxuu leeyahay a'linu an-nikaaha war i'laamiya oo dadka u sheega adduunka oo idil u sheega da'wadaan nikaaha khudbada doonasho gabadha in la doono waa xaasunno in la qariyo doonashada laakiin nikaaha hal ogaado waxa u dhaxeeya xaaraanta iyo xalaasha waxay tahay in la soo bandhigo oo dadka hortooda la imaado وما حي فرقي يقول حي ويلك إله كما قلنا زنا هذا يويلك جورك شرعي هذا كا زنا هذا ورومنا يا وقرصنا يا صوبته نفتي سو كل حشنا يا دتك إن الله هر إمام حمان تاس إنه سمير ميت كان دتك هرت دولا إيمانا يا سو كديرن أو شيء جايو سنن كعقد النكاح وحكمت إن عقدنا كسمة سنة مساجد رسولك صلاة ربي وسلام عليه وحوليه أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد شاق النكاح أو مساجد كديجة قبت مساجد مساجد كبرك وليه مسجد كماهن كلية ما اللي قلت كذا كلية القرآن اللي هو أقرية كلية بل مسجد كو حواي وحوها ماشي صحابة صلاة رضوان الله عليهم كهو جامين جرين الدنك مسجدك وحوها ماشي رسولك صلاة ربي وسلام عليه ومعسكراتك وقبنجر وحيابي سعود مسجدك وحوها جامعات مسجدك وحوها مدرسة مسجدك وحوها مال حفلة لها يفرح لها لغو قبصده مسجدك وحوها مال مرقها يمركي دباتر أصحابتك اسكو إمادان مسجدك وماشي كلية هو ينقه وحا نوها بون إن أفراح لأنه كو قبصنه مساجد سي إلهي بركني سئنوها لشو سونك عقدك وحكمي الوليمة أولم وليمة سمي أنت أسمي دتك أنت أديك أودد أود هذا أيته أولم ولو بشات هل نافح تسكخل هذه أنت أديك أود هذا وحصلنا ككمل إن لو دعي لبضع محل إسقورسته هدي أدفرين ودرسيد متزوجين أقر صلوات ربي وسلام عليه دعاء ديسي دعاء رسولك صلاة ربي وسلام عليه وحقوقرت دعاء رسولك صلاة ربي وسلام عليه هدي أفرين ودرسيد هدا أرود أروس أديد أو كقب بسيد قبل أروس هذا أمويلك كله دعاء رسولك صلاة ربي وسلام عليه كله بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما بخير بركتنا وحي كجرتا خيرك إلهي سبحانه وتعالى وحا إنك بريا إنه خيرك إذين فربضيو أو أذيك إنك يزوجك إنك كل ميسي خيره هذا قيبت قدام بيسو كساب سن عقدك وما حي حكمك نكاح الزواج الصحيح اللازم هدي أنك عقدي أن فلينو أنك كسلنا وحيابي صحدا هاي شروطه سيد الرب سومري محاك دالنايو وهذا المهم احتاس إننا كهذلنا قبر كست يويل كست هو يكست يأبا كست أو قبر دشيء أما ويل دشيء وحا هبون إني أقادان أنك هذا فريسانو مجلسك عقدك أو ويلكو أنك أبيه قبر دالي كله ويلكي waxaan ku guuriyay gabadheedii heblaaya ahay meherka intaas kitaabka ilaahay sunnada rasuulka sallallahu alayhi wasallam iyo shahaadada dadkii xaadiriinta ahay oo kadibna wiilka dhaho waan aqbalay erayadaas aniga markaan ku dhawaaqo waxa ka dhalanayo erayadaas kadib 7 arrimadood arrinka koowaad waxa ka dhalanayo xil istimtaaci kullin minhum labadaas oo inay istimtaac isla sameey karaan gabadheedan waxay noqotay xaas ay u noqotay wiilkan haddii wiilkan iyo ayadu ay rabaan qol khaas ah inay galaan dib ma lahan aniga ma ahan inaa dhaho anoo aabaheed gabadhii ma galaysin waa mamnuuc inaa labadiina qol khaas isla gashaan waa xaraan lama ogolo inaa saas dhaho waa khalad adiga gabadha hooyadeeda laguma ogolo labadaas inaad asagoo la fariisanayo inuu la fariisto hadduu rabo u diidid inaad soo dhex fariisatid ama la fariisatid haddii ay kaligood meel galaan qol ay qolka iridda xirtaan maahan inaa wiil yar u dirtid oo iridda orod fur بلغ إريد قبضاً شرعياً وزوجتي سوى حاسكيس وحا أبنان الاستمتاع أيضا أسأل لبدو ذو يسكو بنانيين الاستمتاع سمين
nacam waxaa jira caadooyin iyo acraaf la ilaalinayo laakiin walaalayaal sidaas oo kaleeto dhaafa ka ilaaliya waa khalad gabadhan iyo wiilkan way isqaban caqdigoodii wuu dhacay wuxuu u guursaday wiilkan gabadhan inay si jalsa khaas ah u fariistaan si khaas ah kaligood way adiga aad markasta uga daba diraysaa cunug markasta ee banaanka aadayaan maxaa u leedahay waa in raacaya markasta oo gabadhan wax u soo gado wiilkii u soo gado ama wax kale u soo gado muxuu u leedahay hooyadu anigana aaway waxaygi aaway dharkaygi adiga kuma guursan wiilkan gabadhan uu guursaday adiga waa soo guursaday wiilkaadina waxyaabo ku keenay hadda waa doorkii gabadhaada hooyooyinka qaar qiira qaado micnaheedii gabadheeda ayuu banaanka u waday anigana ma raacay gabadhaadan caqdi buu ula imaaday dhar buu u keenay ma ii keenin maal lacag buu siiyey ma ii siinin anoo gabadha hooyadeed hooyooyinka qaar qiirooyina qaadayso gabadhaydu waxay jeclaatay ninkeeda sidee u jeclaan kartaa jecel intaas la eg ayadoo jeclaan waxaa rabaa inaan ka dhex shaqeeyo xaaraan ayay kugu tahay hooyo inaad wiilkaagii ama gabadhaadii zawjkay gabadhaadii aad dhibtid xaaraan bay kaa tahay erayadaas ma dhahdid zawajnii zawajtuk markaas waxay noqotay gabadhaas zawja sharciya oo ilaahay agtiisa sharciyan xaas u ah wiilka wujuubul mahr erayadaas ma ku dhawaaqno ilaa markaan ku dhawaaqno ogaada dhalinyaro eraygaas markaa ku dhawaaqdo waa aqbalay gabadhan aad dhahdid waxaa waajib kugu noqonaya meherkii aad aqbashay ee markaas aad dhahdo waa aqbalay hormaris iyo wixii laga rabay isaga ku heshiisaan gabadha waa adinka hadda gabadhaas khalwa khaas isla sameeysan oo irdaha xirataan oo meelihii dahmanka lidin dado khalaas waajib waxa kugu meherkii oo dhameystiran hadda gabadhaas biri furtid acraada dadka walaalayaal wax lagu dheelamaha biri hadda furtid waajib cad buu kugu yahay meherkeedii oo dhameystiran hadaysan khalwa sharciya dhicin adnan adinka khalwa gaar isla sameeynin nisful mahr baa laga rabaa kala bar meherkii wuxuu ku leeyahay ma laba biri bas baa intaas u dhiibaya haddaadan intaas dhiibi karin oo saas samayn karin mas'uuliyadda ha qaadin ha guursanin haddaadan ku salaynin guurkaada ikhtiyaarka iyo waxyaabaha saxda ah ee aan soo dhaafnay hana guursan adigana gabar yahay ilaa aad ka noqoto haweeney wanaagsan oo mas'uuliyad qaadi karta oo la noolaa karta wiil waxaa waajib kugu midda saddexaad erayadaas haddii aad ku dhawaaqdid in annafaqa gabadhan cuntadeedii iyo quudkeedii adigu ku saaran yahay dharkeedii wax allaale waxay u baahatay adiga ka mas'uul haddii gabadhaada kugu dhahdo caqdiga markuu dhaco mubaashara marka uu dhaqo ma dhacdo caada ahaan ma dhacdo laakiin haddii ay lacala dhacdo hadday kugu dhahdo caqdiga saanta u dhaco aniga waxaa kaa rabaa lacag intaas biilkaygiyaan kaa rabaa dhar baan kaa rabaa intaas isii waa maxay ma hooyada inta u tagtaad leedahay hooyo ma lacagtaas ma dhiibaa lacagtay saacana lacag ay weydiinay maalinta koowaad ay weydiinaysa gabadhan waa xaaskaagi guurku waa mas'uuliyad walaalayaal guurku ma ahan hees la qaqaada xabayta ku xabaytni oo xabayna waa ku jeclaa waa jecesha waa isjecelna guurku waa mas'uuliyad hadaa tahay wiil qaadi kara mas'uuliyadaas tafadal soo dhaw guurka qaad hadaa awoodin iska dhaaf ha galin macmacadaas iyo meeshaas waxa gal wiilasha libaaxyada ee ragga kartida leh oo ajiro waaweyn ka shaqeysto laakiin adiga gabar yahay hadii aadan awoodin ha dhibin golkan hagalin waxa kugu waajib erayadaas markii lagu dhawaaqo inaad adeecdid gabar yahay adigana wiilkan hadii uu kugu dhaho ninkaaga ma bixaysid aniga raali kama ihi kaliya ina guriga ka baxdid ha bixin hadda wixii ka dambeeyo waa ina adeecda ha dhihin aniga mar rabo qof xoriyada iga qaadayo mar rabtid ma qof xoriyada ka qaado ha guursanin easy gurigaaga joog ilaa aan madaliis ku dhimato laakiin haddii aad guursato waxaa waajib kugu inaad fulisid awaamirta zawaajka gabadha dhakhtarada ee isbitaalka joogto ma waxay leedahay wax allaale waxay rabto inay sameeyso mase qawaaniin tibbi sharciyada meesha ka yaala inay ku dhaqaaqdo macallimada jaamacadda dhigto wax allaale waxay rabto may sameeysanaysaa markay rabto may bixi markay rabto may soo gale mase barnaamijka jaamacadda u yaala iyo nidaamka u yaala sameynaysaa wasiiradda ka shaqeysa wasaaradda sida ay rabto inay u dhaqanto miya mase waxay fulinaysaa qawaaniinta iyo waxyaabaha u yaala wasaaraddaas ficlan wasaaraddaas qaanuunta u yaala sameynaysaa gabadha xaaska ee guriga joogto sida ay rabto may u dhaqmaysaa mase waxay ilaalinaysaa qawaaniinu zawaaj waxaa ka mid in aad adeecdid ninkaaga amaradaas waxaa waaye walaalayaal amaro saddex ee ka dhalanayso عقدينك لبدا عقديغودو دحay markii uu caqdiga dhaco kadib insha Allah taala waxaanu kulmi doonaa xalaqo kale oo cusub ee barnaamijkeeni tababarka nolosha guurka waxaanu ku dhameystiri doonaa sheeko ku saabsan caqdiga iyo waxyaabaha ka dhalo waanu kulmi doonaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh waxa la sheegay in nin
carooday ee khalad sameeyay markuu careeday xaaskiisina ka sii daba sameysay ee ayadana ka sii daba carootay ee ka daba dartay dhibaatana ka dhex dhacday